بسم الله الرحمن الرحيم واد المرآسية كتاب كان وحنا قد حياة إنه قدر هذا الكتاب لي ولك كتاب كان معها عد أي جار أولاد هاي أما كتاب عد جار أولاد هاي معها كتاب كان معها وح أي هوينكو جباهيهن كوتو إن أي برتان أما فسرع sidoo kale ninkuna maaha wuxuu kooto uga baahan yahay hal mid baa imanaysa oo ah in dadku tafsiirka ay ku kala duwanaadaan taasna waxa weeyaan sida uu ilaahay maskaxda dadka u kala duwan nin walba maskaxdiisu inta ay arki karto ayay qaadaa ishaadu meesha ayna gaari karin waxba kama arki karto sidoo kale maskaxdaaduna halka ayna gaari karin waxba kama arki karto marka haddii aynu Soomaali nahay oo luqadda Carabiga luqadeena aanay ahayn badanaa tafsiirka weynu bowsanaa tafsiirkaasna waxay u badan tahay inuu nasa ka marnayn taxriif ama jahli fara badan oo dadkiina soo gaarsiiyay ay maxaan ku iraahdaa ay la yimaadeen taas ayaa keentay marka inaan anigu ku tadabburo quraanka oo tafsiirkiisa saxda ah aan raadiyo oo aan baxsi ku sameeyo 2017 ayay ahayd markii maxaan ku iraahdaa aan bilaabay baxsigan sida maxaan ku iraahdaa laga dheehan karo ama maxaan ku iraahdaa raaca telefishinka SBC oo ka sii deyn jiray barnaamij la oran jiray midasha qoyska oo nolosha qoyska aan kaga warrami jiray tacadudka xilligaaba baxsi bilaabay inaan ku sameeyo waxay ahayd 2016 xilligaas aan bilaabay inaan baxsi ku sameeyo maanta oo la joogo 2026 halka aan soo gaaray waxaan aaminsanahay inay tahay amaano cilmi oo aanan maxaan ku iraahdaa ka qarin karin bulshadayda waliba dadka dhibaataysan nugul haweenka iyo caruurta ay u badan yihiin xataa ragga tacadudku dhibaatooyin aad fara badan buu bulshooyinka muslimiinta bulshadana ka mid tahay uu u geystay taasina ma aha maxaan ku iraahdaa mid dumarka iyo caruurta oo kaliya ku kooban waa mid rag iyo dumarba ay dhaxleen waa mid maanta mujtamaca islaam marka aad ku qabatid diirad aad ka wada dheehanaysid halaaga iyo burburka iyo dhibaatada uu u geystay laana waa caqiida tadmiir waxa aynu aaminsanahay عقيدة قلو محانكو إردا مسلمين مشاكتا أي آمين سنتها وآه عقيدة حق جرنمو وآه محانكو إردا هدايا عقيدة إن تخويف وآه محانكو إردا هدايا عقيدة وحلوها هلاقيو وتضرف كواس سيدا أي آمين سنهين أيينو إنقلو آمين سنهاي عقيدة تدمير لكن أين قلنا قانا عقيدة بناء إنايتها لكن معها waxa ugu horeeyay burburisana waa mujtamaca waa qoyska waa hooyada waa wiilasha yar yar maxaan ku raadayay guurka ama qoyska ku dhasha waa gabdhaha xasilid in uu qoysku helo waa waxa ugu horeeya ee ay tahay in la isku guursado marka laga yimaado baahida jinsi inay dadku isku asturnaadaan taasina marka maqaasidii saxda ahayd ay meesha ka baxdo ee maxaan ku raadayay fidradii ay dadku ka leexdaan wax aan dhibaato ahayn kama dhaxlaan inta marka aan ka soo tago waxaan marka la ku celinayaa quraanka markuu ilaahay kaga hadlayay maxaan ku iraahdaa lamaanayaasha dhamaan jamci uu ka hadlay waxay ahaayeen rag jamca iyo dumar jamca oo ka soo horjeeda yaani rag iyo lamaanayaashooda oo haween ah ayay ahaayeen iyo xaalad fardiya oo ah nin iyo haweentiisa ama lamaanihiisa mar kaliya ayuu ilaahay xusay isagoo dhowr jeer ku soo celcelinaya إن محاكو إرادة أي قف كليا لما أنا يال ضمر أي أسكنا يعني زوجات كلمة زوجات لأن إنه لغة عربي جنا مليه ضدك حتى لغة عربي جلها إن لقبة أو نباتة إن وسو النقلية أو محاكو إرادة ما أنت إن لقبة أو أنت سقرننا إن لقبي مركا waxa maxaan ku iraahdaa ay tahay inaynu kala saarno ayaa nikaax iyo zawaajki inuu isku mid ahayn laakiin dadkina nikaax iyo zawaajki ayaa maxaan ku iraahdaa isku hal mid looga dhiga taas waxa keentay in dadkii kala saari kari waayaan marka nikaax iyo zawaajki sidoo kale tan waxaaba la iska indhatir oo gabi ahaan meesha laga saaray shardiga kali ahaa ee ilaahay maxaan ku iraahdaa uu u soo dejistay tacadudka ankixada ama xataa hadii aad aaminsan tahay zawjaad shardiga kali ahaana meesha waa laga saaray waxa la yiri hadii xilliga jihaadka uu ogolaaday maxaan ku iraahdaa uu shardi naga dhigay agoonta si aanu maxaan ku iraahdaa u wanaajino de mar walba waan sameyn karaa maxaa ii diiday taasina de fidradaadi ka soo horjeeda diintaadi ka soo horjeeda kitaabkaaga ka soo horjeeda ilaahay aaminsantahay ka soo horjeeda marka aad ayadiisna iska indhatirto aad tiraahdo haduu kelmadda oo halka ku yiri de maxaa diiday inaanan ob yeelan waxba inayna istaajin stop lan inayna jirino
aan iska socdo maxaa diidaya yani sidaa weeye sidaynu diinteena iyo kitaabkeena aynu ugu dhaqano, which is not good, waana saxna ma aha. marka maxaan ku idhaahdaaye maxaa sax ah? waxaa sax ah sawjaadka markuu ilaahay ka hadlayay nebi maxamed mooyaane cid ay sawjaad u sugnaatay inuu ilaahay kitaabkiisa munazalka una ku xusin. laakiin haween la nikaaxsan karo xilliga marka la joogo ay jihaad tahay shardigooduna uu yahay aytaamta in loo qisti sameeyo, taasi way jirtaa, mana diidin. meel aan ku beeniyey meel aan ku beenin doonana ma jirto, meel aan ku beeniyey iyo meel aan ku beenin doonana ma jirto. ka kaale haddaba nebigu muxuu isagu gaar ula yeeshay? haddaba taa nebigu wuxuu gaar ula yeeshay annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim. nebigu mudnaan ayuu leeyahay. nebigu maa kaana cala annabiyi min xarajin fiima farada allahu lah. nebiga xaalado farad lagu soo dejinayay baa jirtay, sida xaaladda zayd marka uu maxaan ku idhaahdaaye markii la doonayay in meesha laga saaro maxaan ku idhaahdaaye awlaada tabaniga, aladiina yuballiquuna risaalaati illahi wayakhshawnahu walaa yakhshawna axada ila allah. rasuulku ama rusushu risaalo ayay gudbiyaan, taasaa keentay marka labada jeerba nebigu wuu ku noolaaday labada xaaladood. markii uu khadiija qabay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga oo fardi ah isagoo aan nebi ahayn ayuu khadiijo guursaday. khadiija miisaaq buu la galay, miisaaqa ilaahay ma uuna jebin oo kuma farad yeelin, risaaladiisana qayb kama dhigin inuu xaas labaad la guursado. laakiin markii khadiija dhimatay kadib sawjaad buu ilaahay maxaan ku idhaahdaa u ogolaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam liajli alfarad warisaala iyo mudnaanta intaba. taasaa keentay halka mar ee tacadud zawjaad ama aswaajik maxaan ku idhahdaa kelmadda jamac ka dhigaysa sawjad marka keliya ee ilaahay uu qaatay ee uu ku xusay kitaabkiisa ay tahay marka uu nebi maxamed la hadlay, laakiin aysan ahayn marka uu basharka caadiga ee labka ah uu la hadlayo ama dhadiga ah. taasoo ku tusaysa in aysan jirin sawjaad halka badan oo loo xalaaleeyay ninka muslimka in uu guursado. haddaba xalqadeeni hore waxaan ku sheegay in sawaajka iyo nikaaxu kala duwan yihiin, cadliga iyo maxaa ku caqdiga iyo miisaaqu kala duwan yahay, qisdiga iyo cadligana uu kala duwan yahay. maxay ku kala duwan yihiin ayaan rabaa markaa inaan maxaan ku dhahdaa maanta xalqadan aan ku caddeeyo. waxay ku kala duwan yihiin sawaajku waa iqtiraan, waa sidkanaan, waa lamaanimo, waa sakan dadki inay isla degaan ayaa shardi noqonaysa. waa maxaa ku dhahay mawadda wa raxma inay dhexdooda timaado, waayo baahi keliya sida maxaan ku dhahay aan gadaalka arki doono nikaaxa baahi keliya maxaan ku dhahdaa kuma salaysna. waxaa imanaya xididkii baa imanaya, waxaa imanaya nasabkii, awlaad in ay yeeshaan oo ku hamiyaan maxaan ku idhaahdaaye ayaa meesha imanaysa lamaanihii, laana nikaax way kasoo gudbeen ayagu, guur weeye waxa ka dhexeeya, waa zawaaj waxa ka dhexeeya. halkaa markaynu ka tagno daliilo ilaahay usoo qaat isagoo leh wahuwa aladii khalaqa min almaai basharan fajacalahu nasaban wa sihra. markasta ilaahay wuxuu ku lifaaqaa lamaanimada ama sawaajka guurka caadiga ee aan nikaaxa ahayn ee aan tacadudka lahayn ee aan la ogolayn inuu ninku hal xaas ka badan inuu guursado. ilaahay mar walba wuxuu ku lifaaqaa in maxaan ku idhaahdaaye xidid iyo maxaan ku idhahdaa tafiir ay meeshaa imanayso. ilaahay dad caqli leh buu la hadlayaa, qof isnikaaxsaday si uu baahidiisa maxaan ku idhahdaa guurka baahidiisa maxaan ku idhahdaa jinsiga maxaan ku idhahdaa inuu u ilaaliyo uuna maxaan ku idhahdaa dembi ugu dhicin. laba qof oo isu nikaaxsaday caruur in ay ku fakeraan waa wax maxaan ku idhahdaa mandiqa ka fog. ilaahayna marka uu qofka la hadlayo dadka xisaabtama ee caqliga leh fikra ayuu la hadlaa. qofka wax iska bowsada ee iska socda dee waxba ma kala garanayo. sababtaasaa keentay inuu ilaahay dadka ahlo caqliga uu la hadlo qur-aanka ay guurka u galeen nikaaxa uga yimaadeenba ay tahay in ay ballaadhaan maxaan ku idhahdaa haddii uu ilaahay maxaan ku idhahdaa uu u rumaynayo. waxaa daliil u ah daliilo badan bay leedahay, laakiin waxaa kaloo daliil u ah wallaahu jacala lakum min anfusikum aswaajan wajacala lakum min aswaajikum baniina waxafada. taana waxaad arkaysaa baniina waxafadaa lagu lifaaqa in lamaanayaasha uu ilaahay idin siiyay nafihiina ka abuuray uu haddana idinka sii siinayo baniina waxafada, kuwa aad ayayaal iyo awoyaal u tihiin iyo kuwa aad idinku dhasheen oo aabayaal iyo hooyayaal u tihiin.
marka aynu ka nimaadno haddii aynu daliil kaleeto qaadano huwa alladii khalaqakum min nafsin waaxidatin wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha kii hal naf idinka wada abuuray ee naftaasna sawjkeeda ama lamaanaheeda u abuuray isla ayada isagoo ka abuuraya si ay ugu xasisho oo ay maxaa ku dhahdaa ugu sidkanaato liyaskuna ilayha لأن السكن كوحين قلنا قانا إن لا إسك كلا تجو أما ما حكوا ذاي لا إسقباء أو قف ميل كلا تقود الجنادة سكن واسد كلام وإسل جوجس وهايو حدي الله ربضت كان إن إسكول أرسون هذا وإن إسل شوجا حدي الظروف مشاقة كانتنا وحالة وقتي ما أهاني أن أبدي أهين أنت مركي نكسر تجنا حتى بالنكاح محويها نكاح وعقد وكتب كتاب وحويان هشيس إلا قلا يده هشيس كاس ومحانكو إلى هدايا يعني ومدخل كل جسوا قلا حلاشة هشيس إلا قلا شيء إن وحشيس لو قلا وكبل لارين هاي جورك لأن النكاح محانكو إلى هدايا هل هوين يهلنا مركا إس نكاح سنة يعني محانكو إلى هدايا مركا إسكور سنة وإن النكاح صامران مركا النكاح صامران وجواد مهر كذي محانكو إلى العدايا oo ninkii iyo maxaan ku idhaahdaa gabadhii la isu xalaaleynayo weligii iyo shuhuudii ay imanayaan nikaax weeyaan kadibna guurkiiba maxaan ku idhaahdaa ay isla aadayaan sidoo kale nikaaxa marka ayna rabin dadku inay maxaan ku idhaahdaa guur iyo de mustaqbal iyo nolol dheer ay ka dhaxayso oo hadaf dheer una ka dhaxayn kaliya ay doonayaan maxaan ku idhaahdaa inay xalaal isu noqdaan dad badan baa jira maxaan ku idhaahdaa arday ah ama shaqaysta ama duruufta ayna u saaciday laakiin raba inay dhowrsoonaadaan dadkaas nikaax buu ilaahay usoo dejiyay inay isnikaaxsadaan la isku og yahay gabadhina uu meherkeedii maxaa ku idhaahdaa uu qoro intaa kadib sakanki isla digisti shardi ma aha maxaan ku idhaahdaa nafaqadii oo kaleeto maxaan ku idhaahdaa shardi ma aha maxaan ku idhaahdaa waxyaabo badan oo aan shardi ahayn baa meeshii soo gelaya waayo miithaaq muuna qaadin miithaaq maadaamuna qaadin nikaax waa wax fudud dadkaas labadooda qof mid walba nolol buu leeyahay ama maxaan ku idhaahdaa baahiyo gaar iyo duruufay leeyihiin waxay doonayaan inay xalaal isku ahaadaan hal mar bayna dhici kartaa nin iyo hal haweeney iyo hal nin bayna ka dhex dhici kartaa waayo marka saddexaad ee nikaax imanayo waa marka tacadudka nikaax uu imanayo waa marka la helo maxaan ku idhaahdaa xilliga jihaadka oo kaleeto agoon tiro badan iyo dumar tiro badan oo araamil ah oo laga geeriyooday oo bulshadiina maxaan ku idhaahdaa rag aad u fara badan ay dagaalka dartii masiiba caama ay dhacday oo ay dagaalka dartii rag maxaan ku idhaahdaa badan ay ku baxday taas markay timaado waa marka maxaan ku idhaahdaa saddexaad ee nikaax uu imaanayo oo dadka hadda ma joogno moogtahay xilligii cubuudiyada iyo raqa iyo maxaan ku idhaahdaa xilligii mulkal yamiinka ma joogno hadda xilligii diintu markii ay imanaysay maxaan ku idhaahdaa saxaabadu maaragtay ay la kowsanayeen arrimaha maxaan ku idhaahdaa fadra intiqaaliya min marxala ilaa marxala ukhra baa la aadayay markaa ma joogno hadda waxaynu joognaa xilli aan cubudiyad jirin mulkalimiin waxaasoo dhan aysan jirin so hal nikaaxa oo xalaal ah buu ninku yeelan karaa iyo hal guur ah oo xalaala haddii ay dhacdo masiiba caama oo jihaad oo kaleeto uu dhaco xataa waa loo qaateen haddii ay dhahdo bulshadu haddii maxaan ku idhaahdaa sida hadda falastiin oo kaleeto haddii dagaal dheer daba dheeraada baa ku socda rag badan baa ka baxay agoon badan baa soo baxaysa araamil badan waxaan ku daweyneynaa maxaan ku si mas'aladu ilaahay oo jihaadka ku daweeyay baan ku daweyneynaa haddii la dhaho waxaa imaanaya marka ankixa tacadud baa imaanaya oo ankixa yacni ninka hadba inta uu awoodo haddii uu waana shard isagoo aan guursan nikaaxsanin aan idhaahday aan zawaaj una meesha imanin nikaax buu kafaalo qaadi kara laakiin waa ka ilaahay lawa in khiftum haddii uu ka baqo markaas inuu maxaan ku idhahdaa u qistismay waayo markaa weeye marka maxaan ku idhaahdaa iyadoo xaalad caama oo aada u dhibaataysan ay jirto in ay loo qaateen tahay inay muslimiintu dhahaan sidii jihaadka ilaahay ugu daweeyay baynu ugu daweyna waa loo qaateen taasoo kaleeto waa wax la isdhihi karo way dhici kartaa jihaad lama joogo laba wadan unbaa istagaalay maxaan ku idhaahdaa laakiin masiiba caama oo aada u weyn baa dhacday ila dadku way dhimanayaan moogti maaha mar walba maxaan ku idhaahdaa in maxaan ku idhaahdaa loo haddii xaaladii la arkaba oo ay mujtamacii in yaroo kamid ah ama ay qof ama laba ama saddex ama 10 ay kusoo aado in la dhaho tanaa lagu xalinaya macquul maaha taas laakiin masiiba caama markay meesha dhacdo dowladnimadii meesha ka baxdo
dadkii ahludiinka ahaa rag iyo dumar ahaa ee meeshaa joogay ayaa waxaa la doonayaa wixii ay maxaan ku idhaahdaa wax ku xalin lahaayeen marka inay kitaabka ka raadsadaan haddii marka ay dhacdo in ay dhahaan masiibo caamaba inagu dhacday araamil badan dumar badan baa laga geeriyooday caruur badan baa aaba la-aan ah maxaan ku idhahdaa xaq ba inagu leeyihin waxaan doonaynaa in aasxno taas marka taasoo kale loo qaateyna inuu nikaax hal gabadh ah ka badan inuu yimaado si ay gabadhiinan say u hesho oo iyadana maxaan ku idhahdaa maxaan ku idhahdaa baahideeda ay ugu asturnaato ilmihiina ay u helaan dee maaragtay u kafaalo qaadayna ay u helaan nafaqadii ay u helaan laakiin maxaan ku idhaahdaa marka intaa laga yimaado ma jiraan nikaax kaleeto oo kitaabkeena ku jira oo jira ma jiro nikaaxa keliya ee markaa mar walba laynoo ogolyahay waa ka guurka ka horeeya haddii aynu guur aynan u soconin xalaasha inoo noqonay haddaynu guur u soconana ay tahay inaynu wadadii guurka aynu u marno kaas weeyaan marka ay taamtii laga soo wada hadlayay oo dhan marka muxuu isaguna wuxuu ku saxmaa shuhuudda weliga maxaan ku idhaahdaayey labadan qof in la isku ogaado oo gabadhana uu meher maxaan ku idhaahdaayey maxaan ku idhahdaa uu u cayimo taasay sax ku noqotaa xalaal ku noqotaa laakiin dadkani ma rabaan in nolol dheeri ka dhexayso dan ma ka leeyihiin maya waxay rabaan fadro inay kaga gudbaan iyagoo dhowrsoon inay kaga gudbaan oo ayna xaaraan ku dhicin dadka qaar baa laga yaabaa inay waxbarasho adag ku jiraan xilli dheer ama laga yaabaa dee duruufo inayna u caawinaynin 10 sano ama 15 sano soo socda inuu maaragtay awlaad iyo guri iyo waxaasoo dhan maaragtay uu sameeyo so dadka qaar baa ku heshiin kara marka loo eego baahiyahooda dadka qaar baa ku heshiin kara waana marka la guursanayna waana wadadii lasoo marayay oo dee guur sax ma noqonaya haddii aan maaragtay nikaax imanin oo maaragtay aan la helin shuhuudii iyo caqdigii iyo meherkii haddii aan la helin waxaan rajeynayaa marka intaana inaynu isla fahano marka halka mar maxaan ku idhaahdaaye uu sax noqonayo maxaan ku idhahdaa tacadud al-ankixa waa goorma wa in khiftum allaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa daaba lakum min annisaa nisaa buuna ilaahay kaga hadlaya kelmadda mar walba uu ilaahay qaato jamac ahaan xilliga nikaaxa waa nisaa يعني سوجات maxaan ku idhahdaa waa xaalad gabigeedba ka duwan sababtaas weeyaa sababta ilaahay marka tusaalaha uu ina siinayo uu inoogu siinayo isagoo qaadanaya kelimad nisaa waxaan arki doonaa iyadoo hadda waa jamaca iyadoo fardi ah baynu arki doonaa aayaddaas aayadda ku xigta وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا aayaddaas waxay cadaynaysaa marka tii hore maxaynu ku cadaynay aayaddii hore wain khiftum allaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa daaba lakum min annisaai nisaa buu ilaahay adeegsaday ila qofka hadda iyo koobaa caqdigii la sameynaya marka caqdi marka la sameeya dadkii xilo isuma aha waa in haween la isticmaalo ila hadda iyo koob dadkii waa dad isu imanaya moogta min annisaai buu isticmaala taasna halkaan sawjaad laguma isticmaalo nisaa baa lagu isticmaalo waana hadda iyo kow in ka maaragtay nikaaxidii ama caqadkii la sameynayo weeyaan marka uu maxaan ku idhaahdaaye uu kaga hadlaya aayadan kale wayn imra'atun khaafat min bacliha nujuusan haddii uu ninku naajis noqdo sida aayadihii maaragtay qur-aanku labadaba inay maaragtay nushuus inuu ninkuna la yimaado naagtu in la timaado labadaba waa laynoo sheegay marka ninku hadduu markiisa isaga nushuus la yimaado kibir iyo qab iyo isla-weyne iyo maaragtay dee inuu dhibaateeyo ay uga baqday inuu maaragtay dee wax kaleeto oo u geysto oo maaragtay tacadi iyo ku-tagrifal iyo xadgudub ah aw icraadan dee ama uu gogoshii ka dhexaysay ila gogol baa ka dhexaysay gabadhan markuu nikaaxsaday oo keliya waa ninkii maxaan ku idhaahdaaye ilaahay uga baqayay awlaada iyo taamada ah inuu maaragtay u qisti sameyn haddii uu dee naftiisii ilay maxaan ku idhaahdaaye way ka iman kartaaye haddii ay taasi ka timaado ilaahay wuxuu u baneeyey maxaan ku idhaahdaaye in ay dee haddii ay sixi karayaan ay hagaajiyaan oo saxaan oo sulxi la yimaadaan falaa junaaxa calayhimaa an yuslixaa baynahumaa sulxa haddii ay dhici weydana ilaahay inta ayna dhicin wuxuu kusii daray 4 aayadood oo isku xigayaan aayadahaas aayadan hadda aynu qaadanay wain imra'atun khaafat min bacliha nujuusan gabadhii waxaa laga hadlayaa baclibu ilaahay isaga wuxuu ku tilmaamay bacli wa bucuulatuhunna marka ziinada laga hadlayo dee ziina ninkaaga oo maxaan ku dhadaa aada huga isu dhigataan dee quruxdaada maxaan ku dhadaa waa tusi kartaa mandiq maaha inuu ilaahay ku dhaho qurux waaba laga gudbay moogta laakiin wa bucuulatuhunna ninka aada isku nikaaxsan tihiin ayay aayadaasina ka waxay tilmaamaysaa marka laga hadlayo gabadh cidda ay siinadeeda u muujin karto
halkana bacli buu ilaahay ku tilmaamay. bucuulada waxaynu kala kusoo aragnay marka ay kala tegayaan, marka ay kala tagaan haweenka iyo ragga, suurad talaaq ku jirta bucuulu ilaahay u adeegsaday, wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna, wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna. markaana bacal bucuulo ayuu u adeegsaday raggii jamca ahaa, halkana bacli buu adeegsanaya. marka albacal wazawj isku mid ma aha, nisaa iyo imraa buu u kala adeegsanaya. marka aayadda ankixada uu ninku tacadudka ku samaysan karana min annisaa buu adeegsaday. marka gabadhan maxaan ku idhaahdaay ay dhibta kala kulmaysa, ila dhib way imanaysaa oo waa sababta cadligii looga daayay. marka nushuus ama icraad marka ay uga baqdo bacligeeda min bacliha, ninkii ay isku nikaaxsanaayeen, waa ka ilaahay maxaan ku idhaahdaay aayadda ku xigta ku odhanaya walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaai walaw xarastum. si kastoo isugu daydaan in haweenka u cadaalad samaysaan ma cadaalad samayn kartaa. aayaddaas meesha waxay ka saartaa horta in dumar laysu cadaalad samayn karo, laysla guursan karaa, caalamiinka ragga caadiga ah aysan awoodin oo ayna meesha iman karin. falaa tamiilu kula almayl fatadaruuha kalmucallaqa. haddana waxaa loo diiday inuu dhinac u janjeersamo. cadaaladda 100% ma keeni karaysid, laakiin dhinac ha u janjeerso. haddii dhinac uu u janjeersadona taasna waxaa imanaysa inuu maaragtay xadgudub weyn oo maaragtay ilaahay kala kulmo, oo yani xadgudub weyn inuu u geystay oo maaragtay arrin halisteeda leh uu ku dhacay. marka ilaahay marka wuxuu sheegay aayaddani waxay ta'kiidinaysaa inuu ninku cadaalad samayn karin, taasina ay keenayso inuu nushuus iyo icraad la yimaado. waana iyadana waxaa la sheegay inay imra'a tahay, laysat sawja, imra'a xarfiyan. sida maxaan ku idhaahdaaye waxaa jirta in qur-aanku imra'a marka uu qaadanayo uu u qaatay ama tusaale ahaan uu u qaatay imra'ata nuux wa imra'ata luud, imra'ata fircawn, ayaga oo dhan caqdi baa ka dhexeeyay, laakiin maxaan ku idhahdaaye sawaaj iyo miithaaq kama uuna dhexaynin, kuwii kufriyey iyo kuwii ilaahay rumeeyeyba. imra'a marka maxaan ku idhahdaa guur aan dhamaystirnayn buu ilaahay u qaatay, guur aan dhamaystirnayn yacni nikaax keliya, caqdi keliya marka uu jiro ayuu adeegsadaa. baclina sid marka uu caqdi keliya uu jiro ayuu adeegsadaa. marka saasaynu ku kala saaraynaa sawaajka ama sawjka iyo bacligu inay kala duwan yihiin, imra'ada iyo sawjada inay kala duwan tahay. laana sawja buu ugu yeeraa qur-aanka ilaahay ku ta'kiidiya. marka sawjna hal mid keliya ilaahay soo dejiya, hal xaas keliya sawja noqon karta. xataa nikaaxa ninka muslimka hal gabadh buu nikaaxsan karaa, ma nikaaxsan kara ka badan ilaa in sababtaa la helo. al-aytaam shardigaas keliya ayay ku xalaaloobi kartaa. akthar min imraa in la nikaaxsado, akthar min sawjana wax dhici karayaba maba aha. taas waaba ilaahay sawaajka dhan marka uu ka hadlayay kalimad sawaaj oo mushtaqaatuha qur-aanka dhan markuu ilaa 84 meelood baan u malaynayaa, around 84 jeer, adigu around 84 maxaa ku dhada meelood buu ilaahay kusoo qaatay kalimad sawaaj oo mushtaqaatuha sawjan, sawajnaakum, maxaan ku idhaahdaaye kulli ilaa waxaa jamac ka ah sawjaadka nabiga calayhi salaatu wassalaam. nin kale oo maxaan ku idhahdaa keligii sawjaad si maxaan ku idhahdaaye cad oo ilaahay qur-aankiisa ugu sheegay mal lianna sawja keliyuba u baneeya u soo dejiyaba, uuna ogyahay inaysan iman karaynin taasi. halkaa maxaynu ka arkaynaa markaa in ilaahay sida uu maxaan ku idhahdaaye uu u dheeli tiray ay maxaan ku idhaha xikmadiisu ay aada u qurux badan tahay. aayadda ku xigta aayaddaas walan tastadiicu an tacdilu waxaa weeyaan wain yatafaraqaa yuqni llaahu kullan min sicati. labadii gabadhii ninkeeda uga baqaysay naashisnimada ama icraadka, haddii ay hagaajin kari waayaan oo ay yacni hagaagi kari waayaan oo ay waxba ku heshiin kari waayaan, in ay u bannaan tahay in ay kala tagaan. ilaahayna mid walba uu dhinaciisa maxaan ku idhahdaaye uu ka qani yeelayo. في قمة العدالة والإنسانية مركا إنه إغنو سيدا محاكو إلهداي إلهي ومحاكو إلهداي وإصوت بديك يعني حتى ميل سوجاء حتى مركا هدي إلهي بناين لها إنه ننكو هل حاسك بدن وقورسدو يعني زواج عادي وميثاق أو لقلو وحينو أركي لهاين إن أي كلا وحينو أركي لهاين إنه ضمر كان الله هضلي
waxa xaqa loogu leeyahay waxa ay kala leeyihiin sida dhaxalka loogu qaybinayo sida maxaa mubiidka sida hadda ay mubiidka waxyaabaha dhan waa wax ay dadku samaysteen weeyaan maaha wax ilaahay soo dejiyay laana asbaabtaas dhan waa asbaab hamiya oo ay dadku iska samaysteen ninku haddii maxaa ku dhahdaa uu noqdo mid awood badan oo halxaas ku filnayn ninku haddii uu maaragtay doonayo inuu awlaad badan yeesho ninku haddii uu doonayo maxaan ku idhaahdaa inuu ka caajiso oo rabin inuu furo yacni waxay samaysteen asbaabtaas dhan rag dumarkana way ka iman kartaa waxan ma aha wax يعني حالد maaragtay dakarka ama kaliya uu ku iman karo waa wax dhadi kara ka iman karo laf kara ka iman karo ma aha marka wax ilaahay uu ku jaangoyn karo oo adigu nin baa tahay waxa laga yaabaa inaad imisa dumar ka awood badan ragooda imisa dumar aan maxaa ku radaa raba inay carruurta ku korsan imisa dumar maxaa ku idhaahdaay yani ragooda kula jooga iyagoo maaragtay caqiim ah yani waxaas ma aha wax ilaahay uu dadka lamaanayaashu waa waxay ku heshiiyaan waa miithaaq waxan waa heshiis labada qof lamaanaa xor waxay u leeyihiin sida diinta muslimka in aad qaadatid aad xor ugu tahay oo laa ikraaha fi diin ilaahay ku yiri ma jirto meel kaleeto xataa diinta marka hadaayada in allaha yahdi man yasha qofkii isagu doona ayuu ilaahay hadeeyaa ilaahay nolosha marka laga yimaado cibaadadiisa oo kugu farad yeelay maaha nolosha labada qof ka dhaxaysa ayaga xaq u leh waa ikhtiyaar taas ay keenaysa marka inay lamaanuhu iyo guurka uu miithaaq noqdo oo qofka ilaahay uuna maaragtay haddii uuna miithaaqa isagu gelin aan lagu khasbin waajibna lagaga dhigin guurka oo dhan iyo nikaaxa midna waajib lagaga dhigin marka waxaynu arkaynaa inay tahay fi qimmat al-insaaniya والعدالة في قمة العدالة إنه إلهي ما ركتي ودقي كتاب كيس أينو هالكا كديهانينا حدي أن سوكا ومركز زواجك وحاويا وأبدي ومن نيد ميثاق يمادا وسكن وأنا إسلتشوغان واسدكنا وأنا لبدا قف محاكو إلهداي أينا ميلنا كوكلا تيجين إلا محاكو إلهداي دي wax kooban ay isku og yihiin ma ahan yani dad hal guri ka soo wada kaco hal guri wada degan taasoo meesha ka saaraysa dee soo jaati rabada ninka ilaahay ugu baneen waaye sidoo kale moodada raxmada waxay imaanaysaa marka dadku sakan iyo ay ka dhaxayso ay imaanaysaa oo de waxa waa amaanadii caadifiyan qofka maxaa ku ilaahay farxadiisi iyo maxaa ku ilaahay shucuurtiisi yani amaanadii caadifiga ahayd qofka inuu kugu kalsoonaado de ku aamino ayaa meesha imanaysa sidoo kale xaaska ama zawaajka inuu gabadh guursado waxa waajib ku noqoto nafaqadeeda laakiin markuu nikaaxsado de nikaax inuu qofku nikaax ku ekaado oo ayna kaliya baahidooda ay xalaashadaan maxaa keenaya waxa keeni karta duruuf Soomaaliya qofka inuu awoodin baaba laga yaaba mid kale macquul hadda waxa jirta arin fidra ahaan ay xalaashadeen dhalinyaro badan oo ah guurka la yiraahdo dhanka muslimiinta kalena way leeyihiin sawaaj istimtaac waxay dhahaan iyo waxa jirta maxaa ku ilaahay qod basiro wax aynu dhahno yani inay isla dhuuntaan I don't know sida ay maxaa ku ilaahay ugu hirgasho laakiin labada qof bada inay isla dhuuntaan taas waxa keenaysa baahida jinsina inay rabaan inay isku dhowrsoonaadaan ayna wiilkii ama halaysu diido ama maaragtay qabyaalad ha lagu kala kaxeeyo dadkii ama maxaa kale diyaariyeen u ahaanin inay xilliga iskuursadaan taasoo keenta inay fidradooda raacaan oo de ay dhahan waa isqarsanayna laakiin ma aha inay isqarsadaan lama rabin waxaa la rabay waalidka inay gabdhihii lacag dul saarin ama wiilashii maxaan ku idhaahdaay xujooyin kale ku xidhin oo wiilashiina lacag la dul saarin maxaan ku idhaahdaay labadii qofba aan la xiijinin laakiin ilaahay dadkan baahidan isagaa ku abuuray fidradooda ay kamid tahay in la isu xalaaleeyo oo waalidkeed iyo waalidkii isku og yihiin nikaax ka dhaxeeya gabadhaas meher ay xaq ugu leedahay laakiin waxbarashadooda wadan karaan maxaa kale noloshooda wadan karaan haddii ay usoo diyaar garoobaan inuu guur dhex marana guurkii ay uga gudbaan oo miithaaqi la yimaadaan haddii kalena marka ay maxaa ku dhahdaa u arkaan ay kala tagaan waa iyo tafaraqaa ay kala dhamaadaan si sahlan taasna waxay keenaysaa inay ku baraarugsanaadaan haddii ayna guur uga gudbaynin inay ilmihii oo kale in maaragtay waajibaad meesha yimaado ilmaha hadduu yimaado nafaqadii oo kaleeto waajib bay noqonaysaa inay ka digtoonaadaan ama haddii ay ka lahaadaan dee maxaa ku dhahdaa wixii ay ku sixi lahaayeen marka ay timaado ama processka ay uga gudbi lahaayeen uu cad yahay ayaa la doonaya marka waxaynu sheegnay nasabkii iyo maxaa ku dhahdaa xididkii iyo maaragtay hadafkii guud ee guurku inuu sida uga duwan yahay xataa dhaxalka gabadhii laga dhintay ninkeedii bay dhaxlaysaa
hal xaas baa dhexli karta ninku hadduu gabadhiisa ka dhinto waxaana weeye xaaska uu saxda u qabo waa haddii tacadud ankaxa jirto oo maaragtay dee shardigii keliya ilaahay ku xalaaleeyay ay taamtaan la helo haddiina la helin dada waxa isqabaynu ka sheekeynayna waa hal gabadh iyo hal nin ama waxa isdhikaxsanaynu ka hadlayna waa hal gabadh iyo hal nin marka haddii lacalle ay jirto haween ku yimi maxaa ku dhahdaa nikaaxa min ajli shardiga ay taamta ku yimi ma dhexlayaan ninka gabadha keliya dhexlaysa haddana waxaynu aragnaa 4 haween inuu guursado ninku 4 haweenna ay dhexlaan taasna gabadhana waxay wax xaq darro ah bay qaadatay gabadha nikaaxa ku timi gabadhan sawaajka ku timina xaqeedii baa maxaa ku dhahdaa lala qaybsado marka dhaxalka waxaa xaq u yeelanaysa gabadha xaaska ba xaq u yeelanaysa 15 sano oo kaliya ayuuna aslan ba hadii uu yimaado tacadud al-ankixa oo ninku hal haween ka badan hadii uu u baqo inuu u qisti sameyn waayo awlaada hal 15 sano mas'ala socotay ba noqotay waa ilma xataa hadii uurka ku jiro markuu aabihii dhinto 15 sano markuu uu qaan gaaro maxaan ku iraahdaa dadkii isqabay way isii qabi karaan laakiin quraanku nooma cadeyn inay kala tagayaan uu noo cadeey awlaad in xaqooda loo celiyo oo maxaa ku iraahdaa wixii ay xaq u lahaayeen hadii hanti oo kale loo maamulayay markay qaan gaaraan maxaa ku iraahdaa rushdiga iyo maxaa ku iraahdaa xilliga markay gaaraan buluuqa thumma rushdiga in la siiyo waxooda laakiin nooma cadeynin ma kala tagayaan maadaama dee ballantii la isku guursaday ay ahayd in awlaadan loo qisti sameeyo awlaadii la korinay hadday qaan gaaraan ma kala tagayaan nooma cadeyn quraanku marka inay wada joogi karaan laakiin waxaan imanayn meeshii rag kale oo maxaa ku iraahdaa dumar kaleeto oo maxaa kale ay taam nikaaxsadaan meeshii imanayn marka halkaas uu ku istaagaya marka waa xaalad aad u cakiran qodobka lagu daweynayo xilli mucayanayna socon karta xilli mucayanayna iman karta taas weeyaan nikaaxa ku saran nikaaxu marka hadii isna aan soo koobo waa caqdi maxaa ku iraahdaa khasab ma aha maxaa ku iraahdaa dadku inay Google ka dhaxayso laakiin waxa isku guursadaan isku nikaaxsadaan dadku waxa weeye inay Google ka dhaxayso laakiin dad hadii guur u socdaan oo kale ay ku heshiiyaan taasna waxaan u arkaa inay xaq u leeyihiin sidoo kale meher inuu yimaado baraa'at raxim gabadhana hadii ay kala tagayaan raximkeedii la hubiyo in aan wax ilma uuna ku jirin inta marka laga yimaado qistiga iyo cadligu maxay kala yihiin hadaba qistigu waxa weeye luqadan Soomaaliga aad bay faqiir u tahay simida qofka bini aadanka oo maxaan ku iraahdaa uu dad u qisti sameeyo oo simayo maxaan ku iraahdaa si uu u gaarsiiyo arin yani kafad iyo miisaan wax kasta oo la saari karo oo sida ay tahay oo u sameyn karo yani isagoo aan dhinacna u leexan weeyaan halka cadaaladu ay tahay naftiisa iyo darafyadii kale taasoo uu ilaahay quraankiisa ku cadeeyay inuu ninku marnaba cadaalad ka noqon karin maxaan ku iraahdaa bayna zawjaat yani naftiisa waa meesha ku jirta yani qofku si kasta qofka u baadho 1% oo waxa laga helayaa eex ah ilaa waa shucuuriyan waa naftiisi bay ka imanaysaa iyo nafihii kale taasna aad bay u adag tahay in la helo waa sababta qaadiga hadii qof xaaskiisa ama wiilkiisa ama abti uu yahay ama adeer u yahay hadii maxkamad la soo taago ama muxaamiga qofka abukaataha ah looga wareejiyo waayo cadaalad 1% eex baa soo galaysa meesha marka waa laga wareejiyaa cid kale taa loo dhiibaa kiiska marka cadaaladu aad bay u adagtay bini aadanku inay gaaraan waa sababta ilaahay waa caadilka u yahay ميثاق محو يهي ميثاق مركا وبلانتي أحدق أي لبدا قف وضع قلان كاس ويا كإن أي مركا إسن كحسدان كدب ويلك قوال إسكو كورسدان أمانة إن إسكو وريجيان ويا ميثاق وحكاستا أو قفكم كو آمني لها إن أد إلهي إي أمد هرتودا أد وعد كاقش إن آنو الدلين إن محاكو نفتي سأو حفتيا إن آنو محاكو إلهداي كرامدي كو حد قبين إن آنو شرفتي كو حد قبين إن آنو محاكو تعب كيسا كقرسان إن محاكو إلهداي ونعنع وننوشي دي كرامدي دي شرفتي إلا قف بني آدن إنو كحد لنا حيوان مربا إرتراءه دينع لو محاكو لسينو عرقنو مربا دينع لو ديدنا يكما هاد لينو وحاسونا إنو دادك هرتودا أمانة داس وكو قلو ميثاق بالربا إلهينا ميثاقا محاكو إلهداي رقو dumarkay hor dhigaan miisaaq gabadhuna way aqbashaa ilaahay baana ka qaada marka taas waxay noqonaysaa marka in maxaan ku iraahdaa ninkii markuu gabadhii uu nikaaxsado ee guursanayo dadka hortooda yimaado kitaabka gacanta saar sida siyaasiga markuu xil ku qabanayo soo ilaahay dartii ugu aamin kuma dhaho inkastoo yamiin uu isagu galo dhaarto laakiin way ka duwantay miisaaq uu ka culus yahay
wuuna ka ballaaray marka dadkii hortoodii markuu wiilku la yimaado in ilaahay dartii ku aaminto oo wacadkaa maxaan ku idhaahdaaye aanu jebinaynin in ay maxaan ku idhahdaa iyadiina la gasho baa la rabaa 2 jeer bay jebin karaan waa inay kala geeriyoodaan iyo inay isdalaaqaan inta ka horeysa qofkii jebiyo miithaaqun qaliid weeyaan ilaahay buu la hortegayaa wacadka iyo axdigaa weyn ee uu jebiyey ciqaabtiisa ilaahay buu la hortegayaa caqdiguna waxaa weeyaan wax kastoo ay labada qofka ay ku heshiiyaan oo sidii nikaaxi baa caqdi ka dhalanaya wax kastoo labada qof ay ku heshiiyaan oo ay kala saxiixdaan waa caqd saasi marka u kala ballaaran yihiin marka markii qur-aanka lagu xusayay caqdiga maxaa laga yiri wakayfa ta'khuduunahu waqad aftaa bacdukum ilaa bacdin wa akhadna minkum miithaaqan qaliida يعني ومركي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا مركي دوني إنه وزوجتي سيهور بدله وزوجت كلا تقولسده وكقاعدني نحن كل هنتدي إن كستين لأكتها وكان حتى هذا أضف ربضنتا مركا أولي هاي سيدوات وقاعدتان وحاد بكوغشين ميثاق قليل آيات كوغشين إلهنا ميثاق قليل وحنا نوشيغ إنه الله قال رجال بني إسرائيل إنه أنبياء الله قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم marka miithaaqu waa cahdi aad u weyn oo qof kasta uuna jebin karin taas weeye marka gabadhu kay ku aaminayso waayo qofka noloshaada dhan baa la wadaagaysa qofkan waxaad rabtaa inaad nikaax baad kasoo tagteen haddii qof walba lagu u laaban tahay nikaax baa ku ekaan lahaydeen laakiin imika noloshaadii oo dhan tacabkaaga kan cimrigaaga wax walbaad qofkan aad la wadaagaysa awlaad baa idin dhex maraysa nasab iyo sihir baa meesha imanay nasabkii iyo sihradii iyo wax walba marka miithaaq baa u baahan tihiin aad isku aamintaan inuu dhexdiina yimaado oo ilaahayna oo maxaan ku idhaahdaa idinku ilaaliyo qofkii jabiyana ilaahay ciqaabtiisa uu la kulmo marka ugu dambeyn inaga maxaa marka aynu inaga maxaan ku idhaahdaa aynu haysanaa guur ahaan ama seebeen u dhaqana inaga waxaan aynu guurka u naqaano jaantaarogana ee iska furan maxaan ku idhaahdaa maalinba meel la degan yahay waa caqiida tadmiir waa sida caqiidada tadarufka caqiidada takhwiifka mashruucayga caqiidadana aniga waxaa weeyaan fidrada iyo kitaabka ilaahay inayna istiidin hada huwa mashruuc الأكبر fikrada iyo fidrada iyo caqiidada ilaahay inayna ahayn wax istiida ilaa in la istiidsiiya ma aha marka inagu maanta maxaa weeye guryaheena aynu ku dhaqanaa guurarka aynu haysano maxaa weeyaan guurarka aynu haysano waa natiija ka timi maxaan ku idhaahdaaye qur'aan sidii saxda ahaa aan loo fahmin ama loo fasirin ama la taxriifiyey yacni waxaynu soo bowsanay tafsiiro loogu talagalay in maxaan ku idhaahdaaye dana gaar ah la dhexmarsiisto ijtimaaciyan siyaasiyan thaqaafiyan maxaa dad badan oo maxaan ku idhahdaaye diintii khalday oo ku loolamay oo isku laayay oo maxaan ku idhahdaa ama boqortooyooyin ilaa iyo hadda maxaan ku idhaahdaaye danahooda u jooga adduunka kutubtii maxaan ku idhaahdaa tafsiiradii ayagu rabeen inay maalgeliyeen oo ay adduunka ku faafiyeen maadaama maxaan ku idhahdaa awoodna haysteen inkamna ay haysteen iyo ciddii doontaba in ay ilaahay muxuu inoo sheegay inuu maxaan ku idhaahdaaye kitaabkan uu isagu maxaan ku idhahdaa xafitay marka uu kitaabka yahay laakiin tafsiirka taxriif wuu ku iman karaa tafsiirka taxriif iyo qilad cilmi labadu way ku iman kartaa ilaahay wuxuu inoo cadeynayaa innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مركا أنا وحن آمن زنا هاي قرآنك إنه تحريف كنا بتقول لكن تفسيرك إنه تحريف كنا بتقول هي قلة وعي إنه كنا بتقولين تاس أيام حانكو إراه داي كيني كرتا مركا تفسير كان أينو بوسني إن عقيدة أي وح ودينتو مركا إنه ما تقول كأينو هاي صنو أينو آمن زنا هاي أينو نلوش إنه كسر إنه وجور كترجمة عقيدة تدمير عقيدة بربرين سيدا عقيدة تضرف من بوحة آمن سي هي كلمة إنه كل بعتها صنع أما وحكو ديلو أما وحكو هلا آمن سن مركا أنا واحد آمن سن هاي إن محنكو إراه داي تعدد العلاقات كاغا إن حد لهين واحد آمن سن تعدد العشيقات كاغا إن حد لهين ما أنت أدكو ستبح الغيا من لها دونك جوغرا إنا بوضا شوكان سطو لها سوضو جحايل لوضا السميس من أجل إنا مثل بعد كلا بحضو waxaadna ku jirtaa contract iyo miithaaq baad qaaday qofka contractgaas kuma xisaabsana qiimo kuma laha lianna caqiida tadmiir brainwash ayaa maxaa ku dhahda maskaxdaada waxay ku samaysay inaad fidradaada kaa kaxayso oo caqiida tadmiir ay kugu bedesho fidradii saxda ahayd ama caqiidadii saxda ahayd ee aad raaci lahayd tacadud alcashiiqaadku xad ma laha tacadud alxabiibaat xad ma laha
aabihii waa cashiiq maama, aabihii waa cashiiq habeen ama isbuuc kamid isbuucyada guriga yimaada, ilmihii waxa xiriir kama dhexeeyaan. baxsiyada marka maxaa ku dhahday laga qoro wiilasha dhanka dumarnimada u bata ee raganimada ka taga, waxaa la sheegaa wiilasha aan aabaha la soo korin inay u badan yihiin amaba laga faa'iidaystaba. mar waxaa jirtay aan documentary baan daawaday lagaga hadlayay nin, waxaa lagu wareysanayay nin inamada yar buu faraxumeyn jiray. waxaa la yidhi maxaad ku doorataa daxiyadaada, qofka victimka ah ee aad ugaarsanaysa maxaad ku ugaarsataa? wuxuu yidhi aabuhu inuu yahay maqane ama uu yahay ha joogee maxaa ku dhahday aaba qalafsan oo aan aqoon lahayn, iyo hooyo burbursan oo keligeeda oo single mother ah. taasoo kaleeto oo maxaa ku dhahday murugo dareemaysa oo maanta nolosha ay ka wareersan tahay, iyo ilmo indiwaa'i ah oo bulshada iyo saaxiibada ka dhex baxsan. waxyaabahaas waxay ii sahlaan buu yiri inaan ilmaha intaan yacni dee maxaa ku dhahday hero inaan ahay isaga muujiyo, aabanimaduu rabay tuso, oo maaragtay wixii uu qalmay maaragtay shucuurtii iyo maaragtay aan tuso, kadibna aan ku xadgudbo. marka wiilashu waa domestic violence-ga ugu badan adduunkana waxay ku dhacaan wiilasha yaryar. marka xogahaas oo kaleeto la ururiyay domestic violence, wiilasha yaryar ciyaalka domestic violence dhanka childrenka ciyaalkay ku dhacdaan domestic violence-ga ugu badan, laana wiilku maxaa ku dhahday wuu ka duwan yahay gabadha. taas waxay keentaa xataa wiilku inuu fikradiisa ka tago, sababta waxaa weeyaan wiilku hooyadu qudwo saxa uma noqon karto, gabadha qudwo saxa u noqon karta. marka wiilashii yaryaraa waxaa laga yaabaa qeyb kamid a in ay arrintaa ay salfadaan. ilaa cashiiq maama uuba ka cabsanayaaba, halka maalin ama aabahani 4 guri 3 guri buu leeyahay, maalinta uu yimaado waa lagu cabsi gelinaya, xiriirba kama dhexeeya. hadhow markuu weynaado isaga soo madax leekaado, khilaaf kala hor yimaado iyo madax adayg ama balwad yeesho, waxa kaliya uu odaygani ku sixi karayo ilmahan dee mawaaqifta uu kaga hor yimaado waxaa weeyaan inuu xabsi geeyo ama tahriibiyo ama tabliiq ku daro ama maxaa ku dhahday boarding geeyo, yacni cid kale u dhahayaa ii qabta. marka meesha that's why marka sawaajka inuu sakan yahay oo lamaane kaliya uu dhex maro ilmahan aabahood iyo lamaanihii dadkii inay si sax ah dadkii inay u dhowrsoonaadaan baa la rabaa, in si sax ah ay u xifdismaan, laana waxan waa amaana, ilmaha ifka imanaya waa amaana. gabadha waa laga yaabaa haddii aaba weydo inay nin xunoo kasta ay iska gursato, nin wanaagsan waxay ku dooran lahayd ama aabaheed uu xun yahay, nin wanaagsan waxay ku dooratay inayna aqoon, laakiin fidradii inay ka tagta gabdhaha way adagta oo hooyadii bay haysataa. laakiin wiilku aabaha maqna joogaha cashiiq maama ah oo habeenada kamid imanaya ama isbuucda kamid imanaya ama bilbilaha kamid imanaya ama dhowr sano kadib soo degaya hal maxaa ku dhahdaa hooyadina sidaa ku qaba ifka keenay. subxaan allah, dadku been quluubka alxajar waxaas oo dhan waa wax maxaa ku dhahdaa qof walba iyo aakhiradiisa oo ilaahay la hortegi doono. taas waa nikaaxa ilaahay u baneeyay, inaad guri ku degdegto wax fudud ma aha. aabanimada iyo hooyanimaduna wax dhamaada maaha. waxaa laga yaabaa inaad 90 sano jirto, qofka 60 sano jira aad dhashay ama 70 jira 20 jirka ku dhashay weli aabaya hooyaad u tahay, still waalidnimada wax dhamaada ma aha. marka ay korayaan iyo xilliga muraahaqada iyo xilliga dufuuladana waa xilliyada ugu adag la rabo inaad protect garaysid, yacni inaad meel uga maqnaatid ma aha. haddii kale amaanadii ma aadan qaadin. amaanada maaha kaliya inay guryaha kamid ay degan yihiin aad biil usoo dirto, ama guri maxaa ku dhahdaa haddii ay degan yihiin aad cunto siisa. amaanadu taa maaha, amaanadu akbar min haada, intaa way ka weyn tahay. qimat alamaanana waxaa weeyaan ilaahay in uu ku yidhi qur-aankiisa hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna. qimat alamaana, dhowrsoonaantii lamaana, qimat alamaana yaa qimat alamaana taasaan ayaa keenaysa. marka waa inay xalqadaha kaleeto dhalinyaradana waxaan farayaa in ay ku guursadaan fidrada, inay miithaaq ku guursadaan, inay caqiidada tadarufka ee guryahooda burburinaysa ay bedelaan oo ku bedelaan caqiida lilbinaa, caqiidat binaa in ay ku bedelaan ayaan dhalinyarada farayaa. in ay kitaabkooda bartaan, in maxaan ku idhaahdaay ay fidrada raacaan, in ay guryo nolol faraxsan maxaan ku idhaahdaay amaanada ilaahay aad la hortegaysid. sawaajku waa amaana, waa miithaaq. haddii aadan awoodin nikaaxso, si cad ugu nikaaxso, ha kuu kala duwanaadaan. haddii aad la imanaysa caqiida tadmiir, guri ha dhisin. sidoo kale gabadha haddii aadan miithaaq ninka ka qaadanaynin oo aanu ahayn maxaan ku idhaahdaay nin miithaaq kula imanaya, ka fakar mar iyo 2 iyo 3 inaad guri dhisatid.
فقرك wax ceeb maaha la isku mannaco dhalinyarada iyagoo aan waxba haysan way isguursan karaan way isnikaaxsan karaan sawaajna way la imaan karaan ilaahay baa ka qana yeelay cidna faqiirnimo kuma dhimato haddii ay xataa nolosha ku bilaabaan laakiin waa inaad nolol saxa oo fidradiina ka turjumaysa oo maxabo iyo mawadadii ilaahay idiin soo dejiyay leh waa inaad heshaan si aad jiilasha kale uga duwanaataan haddii kale waxaa soo baxaya mujtamac soomaaliga abaa soo baxaya mujtamaca muslimka maanta adduunka tayada yar ee taagta yar baa soo baxaya taas waa inta la rabo inaad ka hortagtid mujtamac isaga dhan ku dawaafaya gogol raggi dhan ay ku dawaafayaan gogol oo aan maxaa ku dhahdaa wax soo saar balahayn hadhowna intii loo yimaado maxaa ku dhahdaa meeshooda ilmo yar 12 jir bam loogu soo dhiibo meeshooda lagu qarxinayo kaasaa soo imaanay